حسن بحلم أساسها كوفي حدقاء جيسكا قدوميه دناء حسن أنا نحن ولا منسوي كشي دا يقول حكيتي اسكيتي أنا كحتاجا كيف بها مثلا حسن بهوب لقور سمحات كوكينت هواك نوي فدياني ما sida waxa la guursan maxaad ku keentay waxa sameeyay muddo ku siman 2 sano ka hor waxaan jeclahay in qisadeeda waxoogaa dulkaxaad iyo kurkaxaad aan ku sameeyo isla marhaantan aan soo koobo maasadan aan ku daadayo maalmaha ka mid ah ayaan xaafadda jigjiiraan joogay ka soo dhaqaaqayo suuqa hoosaanime gaar ahaan xarunta dahabshiil ee ku hortaala kasoo horjeedka dugsiga Sheekh Bashiir muraadkii iyo dantii iyo hawshii aan u socday markii aan soo dhameysteen albaabka marayo ayaa waxay weerimidey 2 hablood si qurux badan oo diinnimo ku jirto oo dannimo ku jirto oo dulqaad ku jirto oo odaab ku jirto oo dumarnimo ku jirto ayay islaameen mid kamid ah tiri walaal Bariyaan Xasan aad baan ku doonayo xogaa qisa yar ayaan jeclaa inaan kaaga sheekeeyo waa taqaanaa afartii in Hargeysa joogay madaxan xoolo waxaan ku dawaa markay qoro intiina iiba jawaaminba ayaa gabadhii la socotay intii garabka jikaga sii ku tiri naaw blow oo 2 daqiiqo ku soo koob oo dadaj dawaa adiguna naga raalaha oo noo samir halkii aan taagniin ka soo dhaqaaqnay waxa soo istaagnay gaariga ka soo degay dabadiisa waxay ku tiri magacayga ka hadlayna waxaan ahay reer Hargeysa waxaan guursaday ninkan guursaday reerkayga iyo wiilashayda iyo waalidkayga ma rabin laakiin dooqa iyo damaca oo maxay heday aniga iga seed caleeyay ayuu baa suuro galiyay oo way guursaday أنا ما هرسن بن مدرسة مدة قرية يكونوا على تري ويروحوها عين مدو شعر كوحرم يعني يسكب الدوام يبسل على عاد كيد تحسين الصورة قال كم دقين إنه أما هو أما ميل دكتور أنا هرسن قرية يكونوا على تري أيام ذلك إنجليز كتير أفرض لا تنكسر عضلها بين كيا ما أنت كشرا من تكستو كم دو حنكو فكري يعني جا يوم كيجون الملك وذا نوران دعوي أو شرعي هاي أو صفة كوكيناي مسوي كوريا لا سعتان مركي كيوني حسن إن إلهي بين وك حراني أفرت أولا ظهره أنتي أنا دلي وحاني وناكسن أو باريا ورير كيس النقضة وأنا لا فرحة وأنا لا قصلة وأنا لا تشوجة أو دبتي ذا يو فرحة ذا لا بضوا قوب شوجة بس مركي الميه شناد أوركيسان يا شبيتلي أيوه حب يلعب الشقة هاي ما نحلي هبين ودم مقية مركي بيش السوق قارن كل هذا ورشقاdan habeenadan ku noqontay lacagteeda meeday xira Allah nama durhin sookii ayuu awrunay hooyadii baan dhahay soo qalay abuu justification iyo xishoon cudur dar waxa tiri isma wadade intiisaan ugu dara haddana wuxuu bilaabay waxaan xansaday tiri waan maqlay waan ogaaday inuu guursaday gabadh kale haba guursaday inuu waliba guursaday gabadh carruur haysata isagoo in daano yiman ayuu maalintii dambe isagoo degdegay noo yimid tiri kadibna waxaan ku wada tiri warhaade xaajiyo inaad guursatay waa ogax laakiin damiir ahaan miyay ku tusweyd ama miyay ku siin waaye in xitaa haddii aad soo booqan weyda aad telefoonka la soo dasho ciyaalkooda ka soo hordoonto waxaad tiri intuu guuriska kicii ku naa maxaad ka sheekaynaysaa balaayan iyo waxaan yaa kugu akhriyay kadibna wuu noqday isagoo aan qancin buu iska tegey waxaad tiri xaafadii deganayno iiska in guurnayo dhinaca westigaan guurnay ciyaalkayga bay tiri labada wiil ee waaweyn baan ay dugsiga dhigtay sidii banaana malaha deeno qurbaha ma tegine waalidka geeyay iskuulka ciyaalka waxaad tiri iskuulkii cusbaa ku yaalay xaafadii cusbaa aan guurnay 4 cisho markii aan geeyay ayaa maalintii shanaad albaabkii waxaan ku kulannay ninkii odayga ahaa ee carruurtayda aabahood oo carruur wiilaliyo gabdho waxay yihiinba aanan garanayn hadda gacanta midig ku haya gacanta bidixna boorso hurida ku wada aad baan u naxay garabkaan taabtay waxaan ku war carruurtani maxay ahayd intuu naxay wiili waxaan usinaysa
waxay tiri waxaan ku yidhi maxaa xanuunsanayey waxay tiri maxaa xanuunsanayey haddana mar labaad buu yidhi waa xanuunsanaysa haddana markaasay ku ridatay wara dhegeyso waxaan ku yidhi mana fahmin waxaan ku yidhi carruurtani maxay ahaayeen markaasi waxay tiri intuu hareeraha aad weeyay buu ku yidhi wallaahi wabilaahi watallaahi xawi iga raallaa maanta kowaatun baan keenay gabadhan guursadaa dhashay iga raalla kadibna u orday waxoogaa markuu lugeeyey buu gacanta soo taagay gacantii markuu soo taagay ciyaalkii waday si baladareen bay tiri ayay u galeen laakiin kuwiisii waxa dhacaya oo arkayaan halkii bay taagan yihiin labada wiilka yar ayaa gacantii la booday ka weyn baa ku dhigay waxay tiri waxaan gartay inay niyad jabay balse aanay ciyaalkiibu niyad jabin oo aanay aroor walba araga aabahooda u wada aanu dhalin walwaalaya iyagoona dul taagan kadibna waxay tidhi waxaan go'aansaday gebi ahaanba in dalka ingiriiska aan ka soo guuro waan ka soo guuray alxamdulilah dadkuna isku mid maaha waxay tidhi walaal ciyaalkayga adeerkooda xaaladda iyo mushkiladda ogaa ayaa maanta mas-uuliyaddaasi dhabarka iyo tunka ku qaatay oo hadday iskuul noqoto iyo hadday nolosha noqotayba daberaa halkaa markay miranayso xaqiiqatan way taabatay kadib waxaan ku dhawaada adeerkood lambarkooda ma heli karaa markaasay haa tidhi madii garaaci kartaa way ku dhufatay waa isla daafshir horteeda halkan taagnaa kadibna waxaas ka dhigay nin inanta xiga ama eheliya ay qaraabayihin waxaan ku dhawaari dhegeysanayo waa ninkii odayga ahaa dawaakaas ka maqan gabadhii kaana ciyaalkii waa la sileega waa sidii waxu jiraan muhiimeen wuxuu waari dhegeyso sheekho kuwan mas-uuliyaddooda anu ilaahay duldhigay ninka odaga ah ciyaalka lagu u diray maxay ahaydee adiga aniga adeerkooda dhibta la qaybsanyay maxaa mushkilada ku jaban kadibna waxaan sameeyey maase la la guursa maxaad ku keentay inta hore maasadaasi anigu waxaan ahaa dareenka ama inantaa ama gabadha xaaladaasi ku dhacday dareenkeedaan muujinaya laakiin niyadda xasan baan ahay way xanuujisay runtii kadibna waxaan sameeyey maasada inta hore gabadha waxay kaga hadlaysaa nafteeda way la dardaarmaysaa way ugu tusaalinaysaa way tilmaamaysaa inta dhaxana ninkii odayga ahaa carruurteeda aabahood ayay ka hadlaysaa inta dambena gabadhii lagu daba keenay calafku ka daba keenay ayay ka hadlaysaayo waa way ducaynaysaa maasadina waxay leedahay ka sheegay guuxa jooji iskiiji aduu ka taagan ilmada indhahaaga kaydso dhibtiyo caridaaga kaadso xiskiyo aqligaaga kaasho wakhtiga kakan iyo duruufta mir maaha inaad kuftaayo kaskaabnidu waa habaaska kubtaad ku dhacdooda naato qofku dhibaato waa la kulmi karaa laakiin waxay ku dhiirigelinaysaa in kufitaankan iyo kicitaankan labadaba ay wax noloshii waayaha ka qayba yihiin marka waxay isku dhiirigelinaysaa inay kacdo waxaa leedahay hortaa dumaruu kadeedmay kadmayuu kadabankaaray raggii waa kale axmed aanshe 1,000 baa hagaagsan waa 10% xilkii aabana ka feeyey haddaad guur lagu kadeedmo haddaad guri lagu kashkaashmo haddaad kanba lagu hungoobo haddaad kobta muranku yaallo kala dacaylad ku soo hoday haddaad dakafaar la kaartay kawaanka haddaad dul taallo haddaad kubti maasan jeedhay kubkaa jabay maanta qaado rajada kadashada ku naawil diifta iyo nabarrada korkaada adigu dhawaad kartaaye naftooda iyo barakadeedka ninkaad danihiisa kaashay ninkaad noloshiisa kaabtay ninkaad koolkoolinaysay korkiisa dhalaawinaysay kunaamku ninkaad ka raacday kashaada ninkaad ku soortay ninkaad kalgacaad u qaaday kamiinta ninkaad u diiday kalaankaa wanaajinaysay kufkii gaadhsii ku daashay kabtiisa ninkaad tulaysay intuu karin kugu dameeyey hadduu kafan kuu tulaayay mar buu kulankaaga raadin mar buu garan kaalintaada mar buu kayluub ku ooyi mar buu kibirkiiyo dhibtiisa mar buu la kacaa fadhiisan mar buu ka siqin maaga isagiibay toos u bilowd waxay tii waxaa tahay keeblayuurar kobtuu joogaba labaayo ceebtiisuna koonka taallo waxaan kala haweyn gelaynin inuu dhaqankaagu koobay 1,000 jeer anigoo dareensan tiiyo uurkaygu kaaray hinaasuhiigama keenin inaan kashifoon tilmaamo xogteennana dibadda keena wax kastoo la kulantay way aamusnaydeen way samrasuun dhaqashada iyo gurigiin bay ku sii jeeday markaan kudkudahan u mooday markaan hebed keenay reerka kaskaabka markaan u weyday masbaankiish weyn ku qaatay haddaan dido waa karaahiye haddaan kalinkayga dhaafo judhaba kiisbay hor yaallaa haddaan kambarkayga joogo cidliya way kale ahaana sidaanu koogaa tilmaana sidaanu koogaa fudayda
sidaanu karaa hubaala sidaanu karaa xaqiiqa sidaanu kacaa dadaala kalsoonidu waa hubkaya karaamadu waa hubaya nasiibkana lama karaysto ninkii tiisaba kafeeya ayaa tukalana kalkaala xilkana kororsiima qaada kariimahoodkuu ku siiyey adoo kascad uga huleelay adoo kibir kaga dhaqaaqay hankooda adoo kala baashay agtooda adoo ka kiifay adoo kulankooda diiday miyaad qaar kale korriinka xilkooda kafaalo qaaday adoon kuwood noo cadaynin ilaa ninkan odaga birgam la xaydh bala qaaday waa iminka cabdillaahi xaydhigu yidhi ma laga joojiyey markaa waxaa leedahay adoon kuwood noo cadaynin adoon kali noo dab saarin adoonkiina wax gooyo adduun gurigaaga keenin adoonka lahaa wareeriyo dharaar qur-aan ka caynin adoo galay kaalintaada adoon karin soo gadaynin adoon kumi noogu deeqin adoon kira naga dawoolin adoon taydii kafaynin la guursa maxaad ku keentay middaad kursima waroostay kurtin waa ninkii odagaha laakiin magiisa dhifta ah maaha middaad kurtima waroostay middaad kadayood la goysay ninkaa milataa ku mooday walii kabaheed ma yeella iyadoo kaa warkeeni kulaylkana way muquuran karbaashkana way la guyahi koriyo hoos bayuooyi hadday soo laba kadlaysay berrideeday sii kalaari hadday islahayd ninkiinse kurbada way la dareemi dabkii naartii kulaashay dibtaad hanfada u keento kun jeer bay qoomamayni anigu gabar kale kamiinta dhibtiiyo kaarkiiyo hantaadla intaan la kulmiyo inteeda sidaan u kadmiyo sideeda kurbiyo lama rabo walaace rabow ma kaftamo la gooya rabow ma kasbada silaaya rabow ma kacshaha ridaaya intii ibliis koonka joogta rabow waxuu geyn makaabay suniyo ka badsiiya dacra maasidii la guursa maxaad ku keentayna intaasay ku egtahay ma ku joogtaa inaan hadalka aada u dheereeyo ma jeceli waxaa laga yaabaa qoysas badan ama qurbaa ku noolaa ama halkan ku noolaada inay arrintaasi haysato cidda la kulantay waanu u dacaynana waananu ka xubnaa hablaha in qulubtooda qalbiyadooda la ilaaliyo oo la dhowro oo la sharfana annagay sharaf noo tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa marka la yaabay xasano muxuusiinay kaa ahayd markaad ninkii garaacaysa koodhi oo sheekada inay rumaysaa doonaysay si dareenkii ku qaaday waay uga argoo lahayd markaad ninka aysa dhimaashiyaha ahayn garaacaysa gabadha labada dhinacaan u dhincumaan arkay dhinaca kale haddaan marka waayey qof looga qaateena ku xidhan oo xaaladda iga warrama in arkaa muhiim bay ahayd ma jeclan inuu qofkaa ama ninka adagaa ku gafo laakiin markii walaalkii waanu isnaqanay imika waa saaxiibanahay oo waanu is aragnay oo waanu kulanay oo xaaladan oo faahfaahsan buu iga sheegay laakiin waxaa sii dadku aada ugu soo koob marka sugaantu haddaad qof dhibtiisa ka sheekaynayso qofkaasi oo qof kale ka cabanayo macnaheedu maaha inaad qofkan isku koobto waa muhiim in qofkii kale aad ka hadasho ama aada ogaato xaaladiisa marka waxa iga haydun bal labada dhinac cid ku dhowdhow un aada ula xidhiidha ama la soco aad buu mahadsan yahay xasan dhuxul